dan qisay yar idin sheego nibba mareykanka nibba ii warramay mareykanka wuxuu yiri maalba waxa dhacday anoo salaad tukanahay masaajid soo taahay oo salaad ku jira ayaa waxa uu soo xidhay buuri ninku cadaan buuri ninka jidkiisa dhan waxba ku sawiran salaadii waan ku jira ninkan gadaal iga soo xidhay salaada yani yara milicsaday buuri markaas waxa arkay buuri jidkiisa dhan wada doorsoon markaas waxa isii wallahi kuwani كان ملها جانجسكي واحد اللي تشوي ولا يبقى ديلو ربع صلاة دي واحد وسواس ما كنا ما يستوي يبقى قدين صلاة دي مركان كبح هي نيجي سعادي ويلته كده صلاة دي كبح مركان كبح أنا بناك وبح نمساج كان ويجي يقول هذا النين مسلم عضوي ابتهاي ما حيته واحد نيجي وحي قلبا هنشري gabadh Soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa anoo gaal ah gabadha marka wuxuu yiri ayada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada waxana saaxiib ku ahayn gabadhii sidaan saa ula soconay saaxiib u ahay ayaan maalinkii daba waxaan yiri aan ku guursado markaas waxay tiri gaal baa tahay oo ima geydin قال باتهايو ما غورسك صاحب نمدي لو قشها غورنا ما اوكر معنى ايمان با كجير سواء عاصيات بها هاته لكن ايمان با كجير واي تري ايما غيديدو ايما غورسن كرت طيب سينكو غورسدا سو اسلام بيت واي هي بول يكحيو ادي اسلامي لا ديغي way soo kaxaysay bitiri wadaad buu ii keentay wadaadkii baa islaamiyay markuu islaamiyay baan diintii marka si baaray waxbaan si akhriyay diintii baan ogaaday xaqiiqada waan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyay waan hagaagay waadiga ay arkahay masaajidkaasaan joogaa waa cibaadaystaa waan fiicnahay laakiin waxa dhacday anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo wali sidii ah yaan u tagay waxaan idhi buuri naasidani diinta igelisay ma aha ka soo bax diinta ii sheegtay aan galay iyo waxaad haysa isma lehe waxaan ka soo bax aan isguursanay gabadhii wixii bay ka soo baxday waan guursaday way xijaabatay ayadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buuri carruurna ii dhashay labadooda soo la yaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyay oo ilaahay soo uga dhigay sababa waxa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaageeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaas furuhu ka bilowday Soomaarta furuhu ka bilowday gaal baa tahay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaas sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaas sabab u ahaa waa meeshii markay yiraahdaan ruuxa muslimka si kasta oo caasi u yahay iimaanka ku jira ay masalada lama saalada marka yani wax weeye waxaan ku keenay sawirrada jidka lagu sameeyo marba waxba laga qaban karin waxaan ku yiri war sawirkan maadaama aad islaamtay ma iska goysid wuxuu yiri lacag aad u farabadan buu ikalifayaa mana haysto sidaas daraadeed sidaasaan isaga tukanaya goortii ilaahay wax siiyana waan sameey laakiin hadda waan iska cibaadaysanay wallahu a'lam